السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صومالي وين وايد السلام يا دمانتي ميلاد شوكتان با إلهي إذن كيسا إلهي بلايا دون كان هنا كهي ولا ليال وانا دي السلام يا ميلاد شوكتان با صغير يا كبير انت مال انت ايوتاي انت همين كوتاي با دمانتي كل جين ميلاد شوكتان با وايد السلام يا ولا ليال الله يدي السلام يا لا الدنيا آخرة إن شاء الله ما انتي horta YouTube kan ka hadlaya waa YouTube Foos weeye marka dhamaantiin walaalayaal waa idin salaamaya Allah idin salaamaya ila adduunyo aakhiraba waa YouTube Foos weeye dhamaantiin meel aad joogtaan ba walaalayaal Ilaahay subxaanahu wa ta'ala cudurradan iyo masaa'ibahan adduunka socda Allah ina ka hayo maanta waxaan dad badan oo Soomaali ah oo qof iyo laba iyo mid yahay ayaan waxaan la muxuu hayto la muxuu hayto aan rabaa inaan ka duubo cod ka duubo oo aan oraahdooda ka duubo adinkuna aad ila maqashaan insha Allah Soomaali qof walba meel uu joogo waxa way ra'yigiisa in laga qaado waa xaq buu leeyahay mar labaadka kalena waxa weeye muxuu hayto maanta waa la bislaaday oo cid maaragta masaa'ib iyo dagaal iyo xarab iyo waxyaalaha lagu baaqayo rabaa ma jiraanin siiba hooyooyinka iyo ilmaha iyo caruurta iyo dadka makasta oo maaragtay muxuu hayto maanta u nugul adduunkan dhibta ka jira dagaal iyo masaa'ib midna ma rabaa ninkii ku goodiyana asaga bay kaan la ku tahay Ilaahay aakhirana la weydiinayo adduunkana wax laga weydiin doona marka waxaan rabaa hadii Ilaahay idmo inaad dhageysataan hooyooyinkan Soomaaliyeed waxay ra'yi qabaan insha Allah biidmillah adinkuna waa ila dhageysan doontaan qof iyo laba iyo saddex iyo maahan waa dad Soomaaliyeed marka insha Allah biidmillah waad gala dhageysan doontaan Ilaahay idinkiisa biidmillah insha Allah biidmillah haye maxamed adaa ku bilaabay insha Allah maxamed adaa ku bilaabay marka maxamed ku soo dhawow insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halka waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaali anigoo ah maxamed ummadda Soomaaliyeed oo dhan saqiir iyo kabiir meel ay joogaan ba waan salaamayaa salaan kadib waxaanu ka xunnahay dadka Muqdisho maanta maxay ku abaabulaya muxuu hayto dagaalada iyo mashaakilka iyo mudaharaadka dadka abaabulaya baan u baaqaynaa wadankayaga inaan laga burburin masiibo loo horseedin ciyaalka iyo maatada iyo duqowda iyo ciyaalada inaan muxuu hayto la dhibaateyn oo muxuu hayto dawladda aan la macaaradin baan ugu baaqaynaa dawladdeenu waa dawlad jirta waa dawlad muxuu hayto magac leh oo muxuu hayto ninkan aad ku macaaradaysaan aad leedihiin farmaajo ha dhaco farmaajoan maanta laga bilaabo waxaan idin sheegaynaa kulli Soomaali meel ay joogto dal iyo dibadba waa wada farmaajo kulligan wada farmaajo aan ku baaqaynaa waa farmaajo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad ba waxaan ugu baaqaynaa in farmaajo la doorto oo muxuu hayto loogu shubo meel aan joognaba waa wada farmaajaysanahay Soomaaliyeed farmaajo wadanka wax weyn buu u qabtay badayadii buu soo celiyay magacayagii buu soo celiyay dawladda askartii buu soo celiyay muxuu hayto noloshii Soomaaliyeed buu soo celiyay magacii Soomaaliyeed oo dhan buu soo celiyay wixii ka xunna waxaan leenahay cagta hoosteeda allaha geliyo ninkii maanta mudaharaadka iyo masiibada iyo mashaakilka Muqdisho ka wada oo balaayada abaabulaya Ilaahay baanu u baryaynaa Makiya Madiinaan uga soo ducaynaynaa ninkii masiibo iyo mashaakil wadanka u horseeda in Ilaahay kaligi masiibo Ilaahay ku rido oo Ilaahay uu la xisaabtami doono yawmal qiyaamo wixii meesha ka dhaca wadanka waa wadan Soomaaliyeed yaan lagu ciyaarin yaan la dhibaataynin maatada iyo hooyooyinka iyo duqowda iyo waayeelka meesha jooga yaan dhibaato loo horseedin macaaradka waxa waaye wadankayagii bay gateen badayadii bay gateen dadkayagii bay gateen dalkayagii bay gateen raali ugama nihin inay wadanka baabi'iyaan Ilaahayna waxaan uga baryaynaa ninkii masiibo wadanka ku haya in Ilaahay soo qabto oo Ilaahay muxuu hayto ka dhex saaro bisalaame insha Allah baan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa inay madaxweynaha iyo dawladda inay gacan siiyaan oo wadankooda iyo noloshooda iyo dadkooda iyo awlaadooda iyo naftooda iyo maalkooda
inay ilaalsadaan oo dowladda garab istaagaan baan ugu baaqaynaa kulli Soomaali meelay joogto waxaan ugu baaqaynaa waa wada farmaajaan wadana qoryahan wada qaadanaynaa dagaalkaan galaynaa wixii wadanka dhibaato ku hayo dhan waa iska qabanaynaa sidaasaan ugu baaqayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxamed waxaa ka warrantaa Puntland iyo Jubbaland nimanka madaxda ah haysta maxay kula tahay ra'yiga ay ku taagan yihiin oo dalkii degi waayay oo dhibaato laga wado maxay kula tahay macali baa ka jawaabaysa taas weydiinaysa hayo macali haye macali waxa weeye waa noo soo noqonaysaa insha Allah bismillah haddii aan ka hadalno mar walba dadka Soomaaliya jooga waxay yiraahdaan ama dadka banaanka ka soo hadla daaima waxay yiraahdaan reer Jubbaland iyo reer Puntland maxay uga hadli waayeen sidii kalibadii hore aan shalay ka hadlay maanta shalay aan ka hadlay daraadba waxa weeye shacabka anigu mar walbana waxaan haystaa waa shacabka weyn nimanka madaxda oo Puntland iyo Jubbaland oo madaxda ka ayagu dantooday wataan oo ayagu hadal ma leh nin dantiisa wataa qurqurka ku dhagan ma raba in laga taataabto laakiin shacabka maxaa u dana naftoodii iyo maalkoodii iyo ciyaalkoodii iyo dantoodii oo dhan la baabiyay maxaa u dana ma inay riti hoggaanka lagu haysta ahaadaan oo muxuu ahayd war aniga koobka iigu ridaasay raalli ka yihiin mase sida xamar oo loogu kala baxay oo qof walba wuxuu yahay la ogaaday oo runta laga wada hadlay oo qof walba ku haya anagu dantayada wixii wadaan rabna waana run qofkii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka baqaya oo aan qabiil u hadlayn oo aan maaragtaa waxa Ilaahay uga dheeraado aan u hadlaynin runtu ka hadlaa sababtay taa waxa weeye war anaga iisaan baan Ilaahay abuurtay maxaa noo dana anagu miyaanan iisaan naftooda iyo maalkooda iyo caruurtooda u danayn karin oo u talin karin aan miyaanan ahayn qofka aadamiga waxa weeye waa in runta ka hadlaa oo yiraahdaa war anigu sida aanan ninka aanan doorto ama nimanka aanan doorto isla socda waa inuu ka hadlaa wixii jiro war nimankan saasaan ku raacay saasay dantaasay noo wadaan annagoo dhan baa raacayna annaga farmaajana nalama dhalan xasan cali khayrana nalama dhalan waa wiilal shayadii waana kulligoodna waa wiilal Soomaaliyeed hooyooyinkood baa annaguna nahay midna dhibtiisa ma rabno laakiin annaga kii aanu isleenahay kaasa kan kala dhaama baanu raacsanahay guryaha la burburinayo habra masaakiin oo Ilaahay og yahay oo qabow banaanada ku laayay ama dhibaato haysata dhistay maanta hadii laga dumiyo ama ehelkeed lagu baabiyo maxaa danaha ugu jirta maxaa annaga hadaan shacabnahay dan noogu jirta annaga hadaan shacabnahay waxaan raacsanahay kii khayr wada Ilaahay muduu yahay ba Allah nagu beege Ilaahay idankiisa marka waxaan leeyahay dani dadkii hoos joogay baa ku baaba'ay dadkii hoos joogay oo aanan cidna weydiin anagu aan ognahay ayaa ku baaba'ay shacabka Soomaaliyeed marka waa inay ka hadlaan oo yiraahdaan anaga dani oo maxaad noo haysaa dad Ilaahay abuurtay baa nahay waana naloo jeedaa dhibtan haysatay lacagtii muxuu ahayd awalba 30 sano dadku wateen calalka ahaydna wuxuu yiriyaan la qaadana dollar hal la qaato waad ogtiin waad aragteen dhibaato iyo macaarad iyo dhib buu ka wadaa meesha uu joogo rag horaaba joogay oo waagi hore waxba u xunbay bay isu keenkeen jireen sidaan oo kale ma baahaynba waxa soo haray Axmed Madoobe waxa weeye waa nin muxuu ahayd waxa ku xiran mikrafoon aan shaqaba kulahayn baa ku xiran ninkii badayada iyo birigayaga iyo waxa weeye dalka yaga nagu haystay oo dhiiga wiilashayada u marafsanay inuu baabiyo raba ninka dhabarka ku sita weeyo xambaarsan Ilaahana raalli kama subxaana qaadir wixii raalli ka oo dabada ka wadana waa ku gubanayaan sababtay tahay nin muslim dhiigiis qaba ninkii xambaarsada asaguna waa ku gubtaa ninkii dhiig islaameed nin qof dad islaameed laayay ninkii xambaarsada asaguna waa ku gubanayaan Soomaali weyn marka waxaan leeyahay Ilaahay idankiisa biidmillah Ilaahay albaabu inoo furayo oo ina tusay waa inoo muujiyay sababtay maanta dalkeenu shalay iyo maanta waa kala duwan yahay dadkoo dhan waa u jeedaa muslim iyo gaalaba maanta waa loo jeedaa haye waxaanu la dagaalamaynaa niman yiriya beeraha falanina waxaan la dagaalamaynaa niman la yiri shidaalkiina la soo bixnina waxaan la dagaalamaynaa mid yiri laamiga kan caruurtiinu ay marayso dadkiinu maraya la samaysanina biyaha iyo muxuu ahayd wabiyada dadkii baabiyaha iska samaynina oo xabad iyo la taagan inay dadka qarxiyaan ninka raaliga ka oo gurigiisa ku soo hoyinaya oo dabada ka wadaa waxa weeye ninkii raali ka noqdaa waxa weeye asaguna yoomal qiyaamaha waa la haystaa waana uu ku gubanaya
marka walaalayaal intaas waxaan kusoo gabagabaynayaa oon idinkugu dhiibayaa dadka kale insha allah bidmillah. haye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. anigoo ka hadlaya haweenka Soomaaliyeed oo qurbaha ku dhibaataysan hadal oo dhanba waxaa dhamaysay Umu Khaalid marka kelmateen baan ku darsanay kelmateenkan ku darsanay waxay ka hadashay Axmed Madoobe iyo Dani waxaa kaloo sheegayaa hadday noqoto shicibka ku nool Muqdisho waxay maanta mudan yihiin ammaan iyo sharaf iyo waxaan ku iri iyo waxay wanaag bay mudan yihiin waxay ku mudan yihiin ay ku mutaysteen waxay tahay wadankoodii bay difaacdeen dawladoodii bay difaacdeen dalkoodii bay difaacdeen dadkoodii bay difaacdeen waxa macaaradka iyo qarxiska iyo mashaakilka iyo masiibada wada bay wadankoodii ka difaacanayaan sharaf iyo ammaan bay ku mudan yihiin waana u hambalyeynaya meelay joogaan reer Muqdisho madaxiina kor baan leeyahay magaciina ha jiro wadankiina ilaalsada cadow baa nagu soo duulay hadday Kenya noqoto hadday dawladaha carabtan joogna noqoto hadday noqoto meel walbay tahayba Soomaaliya maanta waa lagu soo duulay waxa waa cidna idima maqana ceelna idima qodna wadankiina ilaalsada oo difaacda wadankeena waa wadan dihin waa wadanka maanta adduunka oo dhan uu isha ku hayo gaaladan iyo waxaan habhablaad u jeedaano macaaradka iyo masiibada oo la wada laaluushaya waxay rabaan inay wadankeena macdinta ku jirta ay gurtaan koodii bay soo leefeen anaga marka dihan oo isha lagu haya marka waxaan idinkula dardaarmayaa reer Muqdisho haddaad tihiin reer Puntland haddaad tihiin reer Jubbaland haddaad tihiin Somaliland haddaad tihiin meel ay maanta Soomaaliya joogto waa inaad wadankiina difaacataan cadow baa nagu soo duulay cadowga waa inaad wadankiina ka difaacataan indhihiina hoos bay u jeedaan waa inay indhihiina kor ay wax ka arkaan waa inaad ummadiina iyo dantiina iyo dadkiina iyo magaca Soomaaliyeed maanta inaad difaacataan khaas ahaan reer Muqdisho waa lagu soo duulay Muqdisho waa inaad wadankiina difaacataan baan kula dardaarmaya aad baan u mahadsantiin oo ugu mahadnaqaynaa meelan joogno waa idin soo ducaynaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa wixii wadanka masiiba ku jira la raba iyo wixii dib la damacsan iyo wixii dawladeena duulaan ku ah ilaahay inuu soo qabtay wiilasheena yararka ay aragteen oo Kenya qoriga la hortaagan oo gaajada dhexda ka wada liicaya oo ninka la yiraahdo Axmed Madoobe uu cadawgii Kenya uu ku soo hogaamiyay ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay cadawga ka qabto ina balaayada iyo duulaanka Kenya ku hayso in ilaahay ka xijaabo ilaahayna sharaf iyo magac iyo maamuus bay mudan yihiin inay meelay joogaan ba ilaahay xafido maanta wadankeena wadan lagu tashan karo magaceena kor buu maanta saaran yahay maalin waxaa jirta wadankeena meel aan joogno qurbaba aan la aqoonsanayna wadankiina soo burburiseen wadan miyaad leedihiin laad meel walba lagu sii dhaafi jiro gabdhaheena banaanada lagu kufsan jiray oo waxaan ku iri wiilasheena meel kasta caalamka ay joogaan ay sijinada ku jireen maanta waxa waaye wiilasheena meel kasta ay joogaan waa la aqoonsan yahay waa laga dambeeyaa dad dawlad labaana dad magac labaana magaciina iyo sharaftiina ha ku ciyaarinina Soomaali weynay waa inaad wadankiina difaacataan waa inaad dhibaatada wadanka dadka ku haya waa inaad iska qabataan intaasaan idinku dardaarmaya hadalkay ku soo gabagabaynayaa ilaahayna waxaan iga rajaynayaa ilaahay inuu balaayadan iyo cadawga nagu soo duulay naga dulqaado wiilasha Soomaaliyeed oo furmada wada taagan oo dagaalka u taagan oo wadankooda ilaalinayana ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay magacooda kor ilaahay inuu yeelo oo ilaahay waxaan ku iri nasiibada ku soo duushay ka xijaabo sharaf iyo wanaag bayna mudan yihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawow Umu Khaalid intaasaan kusoo gabagabaynaynaa insha allah biidmillah walaalayaal dhammaantiina waxaan idin leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala khayrka hayna waafajiyo dhammaanteen insha allah biidmillah ilaahay khayrka hayna waafajiyo Soomaali weyne meelaan joognaba biidmillah walaalayaal
intaasaan kusoo gabagabaynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.